Bismillahirrahmanirrahiim waxaan wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 29ka bisha Juulaay sanadka 2025 qodobada qaybtan aan kugu wadaagi doono waxaa kamid ah Shiinaha in ka badan 80,000 oo ruux ayaa laga daadguriyay magaalada Beijing wararkii ugu dambeeyay roobabka iyo daadadka xooggan ee magaaladaasi ku dhiftay gaar ahaan dhinaca waqooyiga xoogagga iska caabinta ee Xamaas si dirqi ah ayaa waxa kaga badbaaday saraakiil iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa Israa'iil howlgalka ay ka fuliyeen Qanyoonis wararkii ugu dambeeyay warbaahinta Israa'iil oo arrintaas qiraysa iyo qorshaha Netanyahu uu la wadaagay madaxweyne Trump si la mid ah daanta galbeed waxa la doonayaa si tartiib ah in magaalada Gaza loola wareego qorshahaasi halka uu ka soo bilaabanayo ilaa ugu dambeyn halka ay doonayaan in lagu dawamariyo warbixin gaar ahaaneed oo arrintaasi ku saabsan ayaan eegi doonaa dowladda Netherlands ayaa qaadatay tallaabo aysan ilaa iminka qaadan dowladaha Islaamka iyo kuwa Carabta Jarmalkana isagoo oo kaashanaya Spain wuxuu doonayaa gargaar inuu gaarsiiyo magaalada Gaza laakiin waa qaab dhanka hawada ah waxa raaci doona tirada dadkii ugu dambeeyay ee ku shahiiday magaalada Gaza duqeymaha diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay xalay ay fuliyeen iyo qorshaha dowladda Sacuudiga ee dhismaha dowlad Falastiiniyiin arrimahaas oo idil ayaan qaybtan kugula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo marcadda show barnaamijka falanqaynta caalamka daawanaysaay dagaalkii Cambodia iyo Thailand waa la soo gabagabeeyay laakiin hadda waxa soo baxaya macluumaad kale in hoggaanka labada dowladoodba ay dagaalkaasi dani ugu jirtay marka la eego culayska gudaha ka haystay Thailand oo kale ra'iisul wasaaraha talada haya oo shaqo joojin lagu sameeyay dhawaan wuxuu la kulmayay mucaarad aad u xooggan mudaharaadyo ka dhacayay gudaha Thailand iyo magaalada caasimadda ah rayidka iyo militariga inay ishayeen laakiin waxa la yiraahdo waxa la tuhunsan yahayba in militariga awood uu yeeshay isagoo ku marmarsiyoonaya cadow ka weyn kii gudaha inuu jiro sida daraadeed militariga ka hortagayaan banaanbaxyada iyo wax kasta oo ay dadku kaga hor imaanayaan nidaamka dalkaasi Cambodia oo kale ra'iisul wasaaraha talada haya oo aabihii xilka kala wareegay aabihii wuxuu Cambodia xukumayay 38 sano oo xiriir ah arrintaas waxay keentay marka dadkii shacabka ah inay kacaan mucaaradkii sidaas oo kale xisbigii talada haya xubnihii ka tirsanaana ay ka hor yimaadaan arrinta ah in wiil iyo walaalkii iyo aabihii iyo yani ay muddo xukumaan dalka Cambodia culayskii gudaha marka waxay fursad u arkeen dagaalka Thailand ay la galeen oo waxay yiraahdeen culayskan ka weyn ayaa jira labada dhinac waxa lagu waramaya hadda midnimo inay ugu yaraan ay ka helayaan dhinacyada shacabka ah tusaalahan oo kalena waxa noogu filan dagaalkii Israa'iil iyo dhexmaray Iran oo labada dhinacba culays gudaha uu haystay laakiin dagaalka markii uu dhacay wixii la isku hay wax ka weyn ayaa yimid haddii aan eegno dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Beijing roobab xooggan ayaa magaalada Beijing ka da'ay in ka badan 30 ruux ayaa la diiwaan geliyay in ay ku dhinteen roobabkaasi dabaylaha iyo sidoo kale daadadka xooggan ee roobabka ka dhashay ilaa 80,000 oo ruuxna waxa laga daadgureeyay xaafado ku yaala waqooyiga magaalada Beijing oo caasimadda dalka Shiinaha ah halkaas oo roobabku ay aad u saameeyeen mas'uuliyiinta dawladda waxa intaas ay ku darayaan waqooyiga gaar ahaan laba magaalo in saameynta ugu weyn laga dareemayo oo roobabka ah deegaanada sida weyn roobabka ay u saameeyeen waxa kamid ah deegaanada dhaca koonfur galbeed ee magaalada Beijing iyo sidoo kale waqooyiga magaalada Beijing oo caasimadda dalka Shiinaha ah waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa aan raaciye Dmitry Medvedev iyo madaxweyne Trump mar kale way is arkeen madaxweyne Trump shalay wuxuu yiri 50 maalin ayaan u qabtay madaxweyne Vladimir Putin inuu dagaalka Ukraine ku soo gabagabeeyo ama uu xal u la yimaado ama uu ogolaado waxyaabahan annaga aan wadno 50 maalin September labadeeda ayay ku eg tahay shalay marka warkii uu bedelo wuxuu yiri 10 maalin ayaan ka dhigay waaba soo koobaya 50 maalin ma sugi karayo way ugu dheer tahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Ruushka Dmitry Medvedev oo 2008 ilaa 2012 madaxweyne ka ah dalkaasi iminkana gudoomiye ku-xigeenka golaha amniga qaranka ee dalka Ruushka ayaa u jawaabay oo wuxuu yiri annagu ma nihin Israa'iil iyo Iran midkoodna ma nihi Ruush ayaana la yiraahdaa waxa uu doono madaxweynahaas ha sameeyo annagana looma meerinayo dantayada go'aankana annaga ayaa gaarayna waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah maalintii shalay xoogagga iska caabinta ee Xamaas waxay howlgal culus ay ka fuliyeen dhinaca Qanyoonis oo koonfurta magaalada Gaza ah howlgalkaasi waxay warbaahinta Israa'iil ay qiratay 6 kamid ah ciidankooda inay dhaawacyo ay soo gaareen mid kamid ahna dhaawac culus ayaa la sheegay inuu soo gaaray laakiin mas'uuliyiinta iyo warbaahinta Israa'iil waxay sheegeen howlgalkaasi fadeexad weyn inuu horseedi lahaa
laakiin waa laga hortagay bay yidhaahdeen fadeexadaasi oo ka dhici lahayd dhinaca Khan-Younis oo koonfurta magaalada Gaza ah. intii gargaarka la qaybinayay Israa'iil waxay doonaysay inay basaasiin magaalada ku daadiso oo ay ogaato xogta dhaqdhaqaaqa xoogagga iska caabinta ee Xamaas. dhinaca kalena Xamaas dhankooda way adeeganayeen waxaana ay weerar ku qaadeen fariisin mid ka mid ah guutooyinka ciidamada Israa'iil ay ku lahaayeen koonfurta magaalada Gaza oo Khan-Younis ah. halkaasi markii la iskula tagay dagaal adag ayaa dhacay. xoogagga iska caabinta waxay isku dayeen inay ka gudbaan mid ka mid ah gidaarada saldhigga u ahaa ciidamada Israa'iil, gaar ahaan guuto magaceeda lagu sheegay Kafir, guutadaasi oo ka tirsan cutubka 98aad ee ciidamada Israa'iil. xoogagga iska caabinta markii goobtii ay tageen iska horimaad culus ayay la galeen ciidamada Israa'iil. waxay doonayeen laakiin oo hadafkooda uu ahaa inay soo afduubtaan saraakiil iyo ciidamo Israa'iil ah oo guutadaani ka tirsan sida warbaahintu ay baahisay qobarada dhanka militarigana ay sheegeen. warbaahinta Israa'iil waxay tiri marka musiibo weyn ayaa laga hortagay oo ka dhici lahayd dhinaca Khan-Younis oo koonfurta magaalada Gaza markii rag hubaysan ay isku dayeen in ay saldhigooda ugu daataan guutada Kafir xubno ka tirsan oo ciidamada Israa'iil ah, laakiin faahfaahin kale lama bixin. waxaana ay yiraahdeen 6 ka mid ah ciidankeena ayaa dhaawacay ay soo gaareen, mid ka mid ah xaaladiisu waa halis. xoogagga iska caabinta ee Xamaas maalmihii ugu dambeeyay marka howlgallo culus ayay fulinayeen iyagoo ka fuliyay magaalada Khan-Younis oo koonfurta magaalada Gaza ah iyo dhinaca Rafah. waxaa la xasuustaa muuqaalkii aan xalay idin la wadaagay sidoo kale oo muujinayay xoogagga iska caabinta oo inta meel 30 mitir ilaa 40 mitir u jirta saldhig ciidamada Israa'iil ay lahaayeen ay gudaha u soo galeen, kadibna miinadii nooca shawaaz la yiraahdo gaajada intay ka fureen taangi ku dhexridaya, iyadoo la xasuustay howlgallo noocaani oo kala ah oo xoogagga iska caabinta ee Xamaas ay hore u fuliyeen. wararka kale waxaa intaas ku darayaan in Israa'iil ay sidoo kale qiratay in 3 ka mid ah ciidankooda ay waxyeello ay soo gaartay markii howlgal kale ay xoogagga iska caabinta ay ka fuliyeen Khan-Younis oo koonfurta magaalada Gaza. waa waliba howlgal kale waxaana la bartilmaameedsaday xilligaasi gaari nooca Merkava ah iyadoo lala eegtay gantaalka Al-Yaasiin 105 sida xoogagga iska caabinta ee Xamaas ay sheegeen. qabiir military oo lagu magacaabo Cornel Nidal Abu Zaid ayaa warbaahinta Al Jazeera la hadlay. waxaana uu sheegay isku dayga ay xoogagga iska caabinta ee Xamaas ay doonayeen inay ku soo afduubtaan saraakiisha iyo ciidamada Israa'iil inuusan ahayn midkii ugu horeeyay oo horay howlgalladani oo kale ay sameeyeen, laakiin weerarkii Khan-Younis lagu tilmaami karayo oo shalay dhacay howlgal kale oo culus oo xoogaggu ay ka soo shaqeeyeen sirdoon ahaan, sahan ahaan iyo abaabulka qaabka weerarka uu dhacay. Nidal Abu Zaid marka wuxuu yiri in kasta oo uu fashilmay howlgalka, haddana xoogagga iska caabinta ee Xamaas waxay xaqiijiyeen in ay doonayeen inay gacanta ay ku dhigaan askarta ama taliyayaasha ciidamada Israa'iil ee guutada Kafir, gaar ahaan kuwa ku sugnaa xilligaasi saldhigga ama xarunta la weeraray. taasina waxay ka dhigan tahay buu yiri xaaladda cakiran ee ay la kulmayaan ciidamada Israa'iil. guutada Kafir la yiraahdo oo ka tirsan qaybta 98aad ee ciidamada Israa'iil waxay ka howlgalayeen waqooyiga magaalada Gaza. sidoo kalena waxaa la sheegay inay koonfurta magaalada Gaza ay ku sugan yihiin. ciidamada Israa'iil iyo saraakiishoodana waxaad moodaa inay wax badan ay qarinayaan, laakiin waxay qirteen in 6 ka mid ah ciidankooda dhaawacyo ay soo gaareen. marka taa laga yimaado, warbaahinta Al Jazeera waxay baahinaysaa iyadoo wargeyska Haaretz oo Israa'iil ka soo baxa soo xiganaysa in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo qorshe la yaab leh la wadaagay madaxweynaha dowladda Mareykanka Mr. Trump. qorshahaasi oo ah in gabi ahaanba ay la wareegaan magaalada Gaza, laakiin si tartiib ah ayaa la doonayaa in qorshahaasi loo hirgeliyo. dhowr qorshe ayay Israa'iil miiska soo saartay. qorshihii generaalada kii loogu magac daray, qorshaha hadda bini'aadanimada loogu magac daray oo la doonayo in Rafah laga hirgeliyo, iyo midkan oo ah mid kale oo la sheegay madaxweyne Trump inuu kaarka cagaaran u siiyay ra'iisul wasaare Netanyahu. haddaba qorshuhu muxuu yahay? qorshahani waa mid la doonayo in lagu qarciyo Bezalel Smotrich, wasiirka maaliyadda ee Israa'iil, iyo wasiirka amniga qaranka oo labaduba ka soo horjeestay gargaarkii loo ogolaaday dadka shacabka ah ee magaalada Gaza. markasta oo gargaarka noocaani oo kala dadka la siiyo labadan way ka soo horjeestaan, laakiin dhinaca kale waxa lagu qanciyaa in dagaalka lagu laabanayo iyo qorshe noocaani oo kala ah. waxaa lagu waramayaa sida wargeyska uu baahiye marka in qorshuhu uu yahay in aag nabdoon oo ciidamada Israa'iil oo kaliya ku sugayeen marka hore laga hirgeliyo waqooyiga magaalada Gaza, kadibna loo soo gudbiyo bartamaha ilaa laga gaarsiiyo koonfurta magaalada Gaza. qorshahaasi aqalka cad ee dalka Mareykanka waxaa lagu waramayaa inuu meel mariyay sida warbaahinta Al Jazeera ay baahinayso. waxa isweydiin mudan marka ma waxa la doonayaa magaalada Gaza si lamid ah sida daanta galbeed in loola wareego mise qorshe kale ayaa soconaya?
markii hore dhowr arrin ayaa miiska la soo saaray oo ahayd in maamul dowladaha carabta ka socda magaalada Gaza loo dhiibo ama in maamulka daanta galbeed loo dhiibo waa tii Netanyahu uu ka hor yimid ama in dad yani technograph loo yaqaano loo dhiibo maamulka magaalada Gaza xogaga iska caabinta xitaa arrintan technograph-ka way taageersanaayeen oo waxay yiraahdeen annaga maamulka in dadkaasi loo dhiibo waan taageersanahay laakiin amniga marna ma wareejinayno hadda qorshahan ayaa miiska la soo saaray oo la dhihi doono marka hore aagan waa aag nabdoon oo ciidamada Israa'iil ayaa ku sugnaanaya wuxuu dhinaca kale qorshahan u muuqanaya marka in lagu bedelay qorshihii Israa'iil ay doonaysa inay 2 kilomitir ilaa 4 kilomitir magaalada Gaza koonfurta laga soo bilaabo ilaa waqooyiga laga tagay ciidankeeda ay ku sugnaadaan oo qayb ka mid ah magaalada Gaza ee goostaan oo xogaga iska caabinta aad ay u diideen intii la wada hadlayay hadda waxa lagu warramayaa inay doonayaan inay dhinacan ka tanaasulaan oo yiraahdaan waqooyiga ayaan aag nabdoon ka dhigaynaa si tartiib ay magaalada oo idil sidaasi ay gacanta ay ugu dhigaan masaarida ayaa aad uga soo horjeeda dhinaca kale qorshaha loogu magac daray qorshihii magaalada bini'aadanimada oo la doonayo in laga hirgeliyo dhinaca iyo Rafax oo koonfurta magaalada Gaza ah dhinaca kale dowladda Netherland ayaa qaadatay go'aan wili aysan qaadan dowladaha islaamka iyo kuwa carabta oo ah in Itamar Ben-Gvir wasiirka amniga gudaha Israa'iil iyo Bezalel Smotrich aysan u ogolaan doonin dhulkooda in ay ka soo degaan Netherland maalin ka hor waxay tiri qatarta ugu weyn waxaan u aragnaa in Israa'iil ay tahay maantana waxa lagu warramayaa in go'aankan ay soo saareen sidoo kale waxa loo yeeray safiirka Israa'iil u fadhiya magaalada caasimadda ah dalka Netherland ama Holland waxay yiraahdeen marka uma ogolaanayno labadaasi wasiir inay hawadeena ama dhulkeena ay soo galaan maadaama ay taageersan yihiin isrisafaynta ka socota gudaha magaalada Gaza go'aankan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo oo maanta oo Talaado la filayo in midowga Yurub ay kulan ay yeeshaan kulankaas oo la doonayo in looga wada hadlo joojinta gelitaanka barnaamijka iskaashiga cilmi baarista weyn ee dunida oo Israa'iil ay qayb ka tahay oo gabi ahaanba la doonayo in halkaasi laga joojiyo iyadoo dowlado badan oo caalamka ay qaadanayaan go'aano ka dhan Israa'iil ilaa imikana dowladihii islaamka iyo kuwa carabta ma aysan qaadan go'aan ka lamid ah oo hawadooda ay kaga mamnuucayaan inay isticmaalaan madaxda Israa'iil ama ugu yaraan ay ka joojiyaan calaaqaadka diblomaasiyadeed midka ganacsi iyo iskaashiga dhanka amniga oo Israa'iil ay la leeyihiin si lamid ah sida Gaza loo go'doomiyay Israa'iil hadii loo go'doomin lahaa xaaladdu sidaan ma noqoteen sida qobarro badan ay aaminsan yihiin sidoo kale dowladaha Jarmalka iyo Spain oo iskaashanaya waxa lagu warramayaa inay qaateen go'aanka ah in gargaar la gaarsiiyo dalka Jordan gargaarkaas oo la doonayo in loo gudbiyo magaalada Gaza waxayna u badan tahay gargaarkaasi inuu noqon doono mid dhanka hawada ah oo loo daadinayo dadka shacabka ee Falastiiniyiinta halka waran digaag aad meel ku xareysatay ugu yaraan raashin aad 4 xabood u daadisay miyuu wax ka taraya mise waxa u roon midka rasmiga ah ee deegaankooda u yaala oo xilliga ay doonaan ay cuni karayaan xilliga ay rabaan ay ka tagi karaan aragtidaada nala wadaag waad mahadsan tahay qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno ilaa iyo 30 ruux ayaa lagu warramayaa maanta inay shahiideen tobaneeyo kalena dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeeyeen xerada Nusayraad oo dhacda bartamaha magaalada Gaza xeradan oo ay dad badan oo shacab ay degan yihiin dhowr jeer ayaa la duqeeyay xalayna waxa lagu warramayaa diyaaradaha dagaalka Israa'iil mar kale inay duqeymay ka fuliyeen gumeystaha Israa'iilna wuxuu qiranayaa xasuuqa halkaasi loogu geystay dadka shacabka ah ilaa 34 ruux ay tirada dhimashada maraysa oo la gaarsiiyay qaar kamid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Gaza macluumaadkii ugu dambeeyay la diiwaan geliyay waxa qayb ka ah ilmo yar oo muddo 2 maalin oo kaliya dunida joogay in xaaladda macluusha ee magaalada ka jirta ay u geeriyoodeen wararka kale hadii aan eegnana dowladda Sacuudiga ayaa lagu warramayaa in ay xukuumadda Washington iyo dowladaha kale ee caalamka ay doonayso inay ka iibiso in la sameeyo 2 dowladood xalkana uu ku jiro in Falastiiniyiintana dowladda ay yeeshaan Israa'iilna sidaas oo kale iyada oo Israa'iil iyo dowlado kale ay ka soo horjeedaan waliba Mareykanka iyo dowlado kale ayaa ugu horeeya waqti xaadirkan inaysan doonaynin in dowlad loo sameeyo shacabka Falastiiniyiinta wararka kale hadii aan raaciyo Israa'iil waxa ay leedahay waxaan dilnay xubno ka tirsan xogaga Hezbollah si gaar ahaaneed mas'uulkii ugu sareeyay qaybta hubka artilleriga loo yaqaano kadib duqeyn ay ka fuliyeen koonfurta dalka Lubnaan wararkaas ayaa waqti xaadirkan ugu waaweyn waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah laysaan muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay caafimaad qab wanaagsan nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh